السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaadaan leeyahay dhamaantiin insha Allah taala maanta halkan waxaan ku duubi doonaa su'aalaynta badan ardayda soo weydiiso ah kombiyuutarka isticmaasha waa nooc ma kombiyuutarka ku shaqeyn kara software-rada Lumia ama software-rada ama garanaysa culus waa nooc ma su'aashaas doonayna inaan qaab yaro kooban kaga jawaabno kombiyuutaradaas waa fara badan yihiin oo waxaad ku xirantahay qofka iyo jeebkiisa kombiyuutarka ka wanaagsan yahay uu ka qaalisan yahay balse laakiin waxaan idin sheegayaa inuu kaan isticmaalo oo ah kuwa aan oran karo waliba waa ugu qiimo jaban yahay ama waa ugu hooseeya properties-kan soo kombiyuutarkaygu waa kan haddaan idin soo ugu horeyn xaggan haddaan tago waxaan tegayaa kombiyuutar ku dhufo waxaan kombiyuutarkaaga tag right click dheh show more dheh haddii aan show more lahayn properties tag properties marka aad ku dhufato okay waa kan kombiyuutarkaygu kaas waxa weeyaan waa processorkiisa weeyaan processorkiisu waa Core 7 9750 Hz CPU-giisuna waa 2.6 GHz ilaa 2.5 ama 2.3 buu gaari karaa 2.6 buu gaari karaa waayahay RAM-ka ku jira waxa weeyaan 8 RAM ku jira waa 8 7.85 baa usable labada shay baa ku muhiimsan markaa waxaad ku ogaanaysaa RAM-kaaga iyo processor-kaaga waxa weeyaan waa qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waayahay waxaan doonayaa haddana inaan ogaado graphic card-ka kombiyuutarkan ku jira right click baan leeyahay right click marka tirahdid show more baan leeyahay NVIDIA control panel ayaa leeyahay waa kan GTX-ka nooca ugu jira ayaa marka koowaad ogaan doonaa dooladmo system information-kaas ku dhufanaysaa system information-ka marka aad ku dhufato wuxuu soo saaraya waayahay total graphic card baa jira iyo ma garanaysaa detected graphic card total graphic card-kaygu waa ka waa 8 waa ka waa 8 GB detected graphic card ku jiraana waa 4 GB oo ka waa 4000 iyo 690 MB marka waa already 4 GB waayahay waa NVIDIA GTX ku jiraana waa 1650 marka kombiyuutarka hadduu intaa yahay waxa weeyaan waa ku shaqeynaya Lumia haddii uu kasii wanaagsan yahay inta ka badan yahay uu kasii wanaagsan yahay speed-ku kasii fiicnaanaya kombiyuutarkan laftarkiisa haddii aan ka tuso xaggan aan ka soo iibsaday Amazon ka soo iibsaday waa kan exactly muddo kale ka horbahay markaas imika waa currently aan available weeyaan laakiin properties-kiisa halkan baad ka saari kartaa waxa weeyaan Asus ROG magacaasa la 15 inch weeyaan full HD backlight iyo waxa uu leeyahay play waa gaming laptop waa Intel waa 6 core weeyaan waa Core 7 okay internet arkayna markaan 9,950 2.6 nawaka GHz up to 4.5 marka 4.5 ku gaara marka hadii jeer la siraado la isticmaalayaa soo gaara wahay وانا ارجي وهي وانا SSD qaadkiisu yahay 512 video GeForce ku jiraan ama GTX ku jiraan waa 1600 content waxa Bluetooth buu leeyahay backlight keyboard waxa uu leeyahay aan kala waska minor weeyaan oo qurxintiisa waxa uu sheekeynaya brandkiisuna waa Asus weeyaan oo ka xaqta brandkiisa waa Asus weeyaan SSD-kiisa hard disk ku jira memory ku jira Windows ku jira markaas kala soo degayso waxa soo dhamaan ka kartaa information oo dhan card code detected GeForce waa kan CPU speed waa kan flash solid state waa kan okay resolution kiisuna waa HD weeyaan marka kombiyuutarkan waa isticmaalaa exactly waa nooca weeyaan waa ka weeyaan marka qofkii u baahan xagaas ka tixraaci karaa garanaysa properties-kaas aad qoranaysaa marka shirkada doonto ayaad iibsanaysaa insha Allah taala
kana waa comments kii laga bixiyo weeyaan marka kuwana waa kuwa related la ah oo magaranaysa la halmaala ama ay isku properties yihiin marka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay computerka aad ku isticmaali lahayd software-rada sida Lumia, Inkscape-ka amaba already computerka waa inuu noocan ma ahaada ama uu ka sareeyo wax ka hooseeya mushkilad uu keenayo hadba mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.